waxaa su'aal ah waxa ay dowladda hoose ee Roma u go'aansatay in ay magaca ka beddesho halka uu mitrowga ku istaago ama bosteejada oo hore loo oran jiray amba aradam stop ee mitrowga C looguna magac daro nin ay hooyadii Soomaali tahay aabihiina Talyaani. si aan wax uga ogaano sababta dib waxaanu ugu noqonaynaa taariikhda geesigan xambaarsan qayb ahaan dhiigga Soomaaliga. waxa uu dhashay Georgio 23 Sebtembar sanadkii 1923 wuxuuna ku dhashay magaalada Mahaday Weyn oo hadda ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe oo ku taalo qiyaastii 100 kiiloomitir waqooyi caasimadda Muqdisho, halka oo ay ku tiil xero military oo uu Talyaanigu lahaa. magaca aabihii wuxuu ahaa Giuseppe Marincola. waxa uu ka soo jeeday magaalada Pizza Calabaro. hooyadiina waxa uu magaceedu ahaa Ashkira Xasan, gabar Soomaaliyeed oo ku dhalatay magaalada Xaradheere oo 500 oo kiiloomitir waqooyi ka xigta magaalada Muqdisho sanadkii 1901, taasoo 2 sano kadib dhalashadiisii oo ku beegneyd sanadkii 1925 la dhalay walaashiis oo loo bixiyey Isabella. Giuseppe Marincola ayaa ula dhaqmay carruurtiisa si ka duwan carruurta ka beeranta ragga Talyaaniga ah iyo dumarka Afrikaanka ah ee dhulalka ay gumaystaan. wuxuuna aqoonsaday 2 carruur oo kala ahaa Giorgio iyo Isabella, sidaas darteed wuxuu siiyey dhalashada Talyaaniga. sanadkii 1926 Giuseppe ayaa 2 carruurta ahayd u kaxaystay dalka Talyaaniga, wuxuuna Giorgio u dhiibtay walaalkiis Carmelo iyo xaaskiisii Eleonora Calcaterra oo deganaa magaalada Pisa Calabara. Isabellana wuxuu u kaxaystay magaalada Roma, gaar ahaan xaafadda caanka ah ee Casa Bertone bishii Juun sanadkii 1926, halka oo uu la degay xaaskiisii Elvera Flores oo ahayd gabar la dhalatay nin ay askarta dowladda ka wada tirsanaayeen. waxayna u dhashay 2 sano ee isxigay sanadkii 1928 iyo 1929 2 carruur oo kala ahaa Rita iyo Ivan. ilaa sanadkii 1933 Giorgio waxa uu ku noolaa Pizza Calabaro, jawi aad uga duwan kan caasimadda Roma oo ahayd xudunta dacaayadda nidaamkii faashiismaha. wuxuuna ku barbaaray fikirka reer Pizza Calabara oo ku salaysnaa jacaylka xorriyadda. waxa uu u soo guuray Roma si uu u bilaabo dugsiga sare ee Umbertaha koowaad oo u dhow Basilica Santa Maria Maggiore oo aan ka fogeyn saldhigga tareenada ee loo yaqaano Termini. dhowr sano kadib sanadkii 1938 wuxuu la kulmay Bilo Albertilli, macallinkiisii taariikhda iyo falsafadda oo ku dhashay Parma oo noolaa intii u dhexaysay sanadkii 1907 ilaa 1944, oo ahaa filosof ka soo horjeeday faashiismaha oo ay booliisku ogaayeen ishana si aad ah uga hayeen dhaqdhaqaaqyadiisa. waxaa la xiray sanadkii 1928 waxaana la saaray ilaalo lagula soconayo dhaqdhaqaaqiisa. Albertilli waxaa loo aqoonsaday inuu ahaa macallinka dadka reer Roma ee ka soo horjeeday faashiismada iyo xisbiyadii la ologa ahaa. waxa uu ahaa nin faafiya fikradaha dhaqdhaqaaqa xorta ah ee hanti wadaagga ee Guido Calogero iyo Aldo Capitini oo ka tirsanaa xisbiga Action Party ee Roma, kaasoo lagu dilay xasuuqii Fossa Albertine taariikhdu markay ahayd 24 Maarso sanadkii 1944, waxaana xasuuqa geystay ciidamada Jarmalka ee dagaalkii 2aad ee adduunka. Albertino wuxuu Giorgio baray dhaleecaynta, shakigelinta, ka hor imaanshaha faashiistaha iyo cadaaladda bulshada iyo xorriyadda. kabiyadiidka faashiismada ee Giorgio Marincola waxa ay u muuqataa inay ahayd habdhaqan kaas oo uu ka tegay bogag qoraallo ah oo yiil gurigooda. sanadkii 1943 Giorgio oo ahaa arday barta cilmiga dhakhtarnimada oo ay weheliyaan asxaabtiisa iyo rag ay isku fasal ahaayeen sida Caio Schifero iyo Corrado Giova, waxay galeen tababar hubaysan ee xisbiga Action si ay uga qayb qaataan
iska caabinta reer Roma. intii u dhaxaysay Febraayo iyo Maarso sanadkii 1944 waxaa lagu soo wareejiyey taliska militariga ee xisbiga ee gobolka Vittorba. waxa uu ku biiray koox si gaar ah u tababaran oo ka koobneyd askartii la kala diray xoreyntii Roma kadib. 4 Juun sanadkii 1944 Giorgio waxa uu qaatay go'aanka ah in uu sii wado iska caabinta isaga oo isku qoray howlfulin gaar ah iyada oo loo marayo xubno ka tirsan sirdoonka militariga Ingiriiska. kadib tababar gaaban oo uu ku qaatay gobolka Boglio Agosto sanadkii 1944 Piedmont ee aagga magaalada Biella isaga oo xubin ka ah howlgalka xulafada isagoo wata dagaalyahano ahna xiriiriye iyo tababare. bishii Janaayo sanadkii 1945 kadib weeraro badan oo ka dhacay agagaarka magaalada Biella iyo howlgallo xiriirineed oo lala yeeshay guddiga xoreynta qaranka ee Alta Italia ayaa la xiray Giorgio waxaana loo taxaabay xabsiga Biella. waxaana lagu qasbay inuu ka hadlo codbaahiyaha Radio Beta aqriyana warar been abuur ah taa oo uu lahaa Jarmalku. intay socotay warbaahinta halkii uu ka aqrin lahaa qoraalka loo soo gudbiyey wuxuu dib u xaqiijiyey inuu aaminsan yahay xorriyadda taas oo keentay in si aad ah loo jirdilo. bishii Maarso waxaa loo qaaday xerada Polizeiliche Durchgangsläger oo ku tiil magaalada Bolzano oo ka mid ahayd dhowr xero ay lahaayeen Naaziga kuna yaalay gobolka kadib markii uu sii maray xabsiyada Torino iyo laga yaabe kan Milano. xerada ayaa la xoreeyey 30 bishii Abriil 1945 markii colaaddu ay ka joogsatay inta badan dalka Talyaaniga ayaa Giorgio halkii uu magangelyo u geli lahaa dalka Switzerland sida uu amarka ku bixiyey taliskii howlgalka wuxuu doorbiday in uu ku biiro kooxo dagaalyahano ah oo ka socday magaalada Val di Fiamme. 4 Maajo sanadkii 1945 dib u gurashada kolonyo ciidan SS ah oo Jarmal ah ayaa lagu weeraray tuulooyinka Strementizzo iyo Molino di Fiamme iyaga oo gubay kuna dilay labada tuulo 21 iyo 6 qof sida ay u kala horeeyaan. 21 lagu dilay tuulada Strementizzo oo 11 ka mid ah ay ahaayeen dagaalyahanada midkood ayaa ahaa Giorgio Marincola. Mauro Caruso oo ah madaxweynaha ururka qaranka ee jaaliyadda Soomaalida iyo Talyaaniga ayaa sanado badan ka shaqeeyey sidii loo sugi lahaa in xusuusta Giorgio Marincola ay sii noolaato si ay u gaarto jiilka soo koraya. Giorgio Marincola ilaa maanta waa calaamad geesinimo iyo wadaniyad. taa waxaa caddaynayo biladda dahabka ah ee geesinimada militariga ee la siiyey isaga dhimashada kadib sanadkii 1953. waxyaabo badan ayay fuliyeen sanadihii lasoo dhaafay ururka iyo madaxweyne Caruso. Mauro Caruso oo ahaa kaabadda isku xirta labada shacab ee Soomaalida iyo Talyaaniga wuxuu had iyo jeer si aad ugu tafaxaynaa in la xusuusto sheekadan aan caadiga ahayn ee Giorgio Marincola. sidoo kale lagu xusuusto Giorgio hooyadiis Ashkiro Xasan oo Soomaaliyad ahayd. intaana waxaan ku soo gabagabeynaynaa taariikhdii yaabka lahayd ee Giorgio Marincola iyo hooyadiis Ashkiro Xasan.